qaar ka mid ah odayaashii waxgaradka beesha walbari oo kala warbaahineed ku qabtay deegaanka Waran ayaa cabasho xooggan ka muujiyay maamulka gobolka Togdheer waxaana baaqo loo soo diray xukuumadda Soomaaliland iyo madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa kale fariin u direen wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed iyagoo amuurtaasi ka hadlayna waxa hadaladoodii ka mid ahaa sida tan halkan waxaan kaga hadlayaa arin ka dhacay Waran leenkaas waxa jirtay niman dhalinyaro ah oo Waran aanu ka soo qaxaynay anagoo ah odayaasha beesha awal bari waxa goobjoog ka ahaa arinta joogay bara saabka iyo taliye ku xigeenka bilayska iyo rag kale oo maamul kamid ah waxa dhacday inaan ka waxaanu gacanta u gelinay bara saabka waxaanu ugu dhiibnay nabadgelyahan waxaana ahaayeen gudidii nabadgelyada qayb kamid ah waxa la geeyay burco markii la geeyay waa la xiray waxaanu anagu soo xireynay bara saabku markii uu niyad nabadgelyahan baan doonayaa nimanka inaan u xiro anaga u dhiibnay waxa dhacday waxaan hor u dhici jirin waxaan xasuustaa muddo iminka ma 82 ilaa 84 taariikhda markay dawladda Maxamed Siyaad Barre waxaan maqli jiray hebel baa la xidhayo hebelna waa la haray hebelna waa la soo daayay oo hangashtaag haysatay tiyo kala horta lagu dhacday labadii nin ee nabadgelyahaanta aanu bara saabka u dhiibnay ninna waa la haray ninna waa la sii daayay ka la sii daayay wax lagu sii daayay nalooba sheegay kala haray wax lagu la harayna wali alaan ka nalooba sheegin waxaanu marayaa maxkamad ta kale noogu yaabka badneed waxay ahayd ninkayga hadlaya 12 jeer baan hor fadhiistay bara saabka 12 jeer ayaan hor fadhiistay 12 jeer buu wuxuu yiri warqadii waaniga imika qoriyo taliya qaybta la sugaya iminka wuxuu marayaa xeer ilaalintu marayo maxkamadda la soo taagayo barxaatiyaal baa loo baadi doonaya cid loo baadi doonaya anagu wali ma fahmin ba ee barxaatiyaasha lagu baadi doonayo awal bariga dadku waxay yaqaanaan ma awal kaba inaanay caban laakiin waxa weeyaan dad marka dhibi gaadho markay dami weydo khasab bay ku noqoteen aanu cabanno oo aanu hadallo halkan waxaanu ka sheegaynaa magaalada la yiraahdo odayaashuna waxay la shaqeeyaan horta halka ku horeysiyay nabadgelyada cid u xil saaran ee bilayska iyo maamulka hadaanay gacmo helin iyo odayaal waxba ma shaqeyn karaan laakiin waxa nasiib darro weyna anagu lambar 1 ka ah nabadgelyada oo la shaqeynayna nabadgelyada tii aan kula shaqeynaynay markii garan waayaan waxaan halka ka sheegayaa maalmaha kamid ah tuulada la yiraahdo Waran dad baa ku guuray gaadiidkoodii wata oo ciidankoodii wata waanu soconay waxaanu tagnay qaybta taliyihii qaybta markaa isagu saacada oo magaalada taliye ku xigeenka ayaa joogay dadkii hawsha waday waxaanu ku qoray OB-ga amarka isaga bixiyay saldhiga dhexe ayuu joogay OB-ga ku qoray buu dadka hawshan keenay ee abaabulkan waanu ku qor kabacdi hawshii markaanu ka cabanaynay waxaanu tagnay hadana bara saabka wuxuu noogu jawaabay waa mawlata nabigii oo maanta birtu waa fasax waxaan ugu jawaabay mawlata nabigu dad beel ku guurtay kala celin maayaani meesha ciidan iyo u dar dad hawsha anaga wax ka qabanayna buu tii aanu ka baqaynay aanu diidanay dad iska degan dad soconayeen baa soo galay halkii waxa ka dhacay waxa shaqaaqa yar baa ka dhacday oo aan weynayn alxamdulillah aan cidna wax lagu yeelin tii hadana ka bacdi waxaan isku soo raacnay oo ku wada nimi Waran anagoo odayaal ahaan la socona dadkii halkan wax ka riday rasaasta keena inamadaas naga jooga ayuu baa halarkoodu cidna kuma dhufan gaadhi wax ma yeelin taayid mid kamay toogan war naga joogo dadkiina geedigii dadkayga deegaanka naga jooga ilaa nabadgelyadu waa noo cid walba wadan waan kula shaqeynay kuwii laftoodii miya cadaalad darro iyo xaqoodii iyo xuquuqdooda dadkana waayeen oo lagu taadeeyay waxaan xukuumadda Soomaaliland u sheegaynaa ama baaq dheer u diraynaa inay naga soo gaadho cadaalad darradan iyo dulmigan
dadka maatida ay abaartaa jooga dadkoodii inta la xidhay aan xaqna la marin dulmina lagu haysta jeelka ugu jiraan wax loo dul qaadan karo aan u dul qaadan karna maaha qaar ay xidhxidheen iyo qaar ay soo daayeen cadaalad darray ku qabsadeen waxaanu leenahay war dadkan laga soo gaaro dowladda gobolka Burco ka talinaysa meel ka wanaagsan ma jirto shalayto inamadii isku qurunquriyey bilaysna looma dirin odayaalo cid kalena looma dirin odayaasha u ahaa ayaa u yeedhay oo keenay nabadgelyada kuwii kale ee la doonayey qaybta kale inay keento ilaa alaanka cidimay dabagelin waxaweye kuwan waxay noqonaysaa dee kuwani waa loobooyaan ayay noqonaysaa maanta waxaa la marayaa maxkamad bay ku jiraan ciday toogteen ma jirto ciday dhaawaceen ma jirto rasaasay rideenna ma jirto cid maanta daba joogto oo ka cabanaysaana ma jirto waa Siciid Cali Cismaan xaalaysta telefishinka caalamiga ee gobonimo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer